waxaa goor dhaweyd oo galabta soo gaaray magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida madaxweynihii dhawaan loo doortay xilka madaxweynenimo kaas oo ay soo doorteen golaha dhexe ee xisbiga iyo guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida oo ay dhawaan shir ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ay ku soo doorteen madaxweynaha cusub iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo qaarkood waaya badan ay ugu dambeysay deegaanka Soomaalida waxaa ku soo dhaweeyay gegida diyaaradaha ee Garaadwiilwal boqolaal ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka oo isugu jira odayaal waxgarad dhalinyaro aqoon-yahan haween iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan oo ku dhawaaqaya hareeyay halku dhigi ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub Mustafa Maxamed Umar iyo wafdigan uu hogaaminayo inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha iyo halka ay madaxtooyadu tahay ayaa waxa soo buux dhaafiyay kumanaan ka mid ah gaadiidka magaalada Jigjiga oo ay ku xardhan yihiin sawirro waaweyn oo madaxweynaha cusub iyo calanka dawlad deegaanka Soomaalida ee dhawaan loo sameeyay waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay oo shacabkii soo dhaweeyay uga mahadnaqay soo dhaweynta milgaha iyo maamuus kale ay u sameeyeen madaxweynaha cusub ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Axmed Shide marka ugu horeyso shacabka magaalada Jigjiga aad u salaamay sida fiican noo soo dhaweeyeen dhammaan mas'uuliyiinta heer federaal iyo heer deegaan iyo dhammaan xubnaha hogaaminta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida madaxweynaha cusub Mustafa Maxamed Umar ayaan ku nimid iyo hogaamin kale oo federaalka la socdaan kunaantii dhawaanahan dhibaato ballaaran baa ka dhacday deegaankeena barakac iyo dil iyo boob wax badan ay ka dhaceen kadib xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya qiimeyn ballaaran baan galay Addis Ababa qiimeynta golaha dhexe kadibna qiimeynta hogaaminta iyo dhammaan shirweynaha guud aqoon-yahanka iyo odayaasha iyo dhammaan hogaaminta sare aan ra'iisul wasaaraha kula shirnay shirarkaas waxaa ka soo baxay go'aano muhiim ah in dib u dhis deegaankeena ku sameeyno dhibaatooyinka kale aan ka gudubno midnimo Soomaaliyeed aan abuurno dhibaatooyinka khaladaadka deegaanka ka jiray iyo kuwa dhawaanahan ka dhacay sidii loo sixi lahaa jihada siyaasadeed ee lagu sixi lahaa oo dhammaan isla qaadanay marka maanta laga bilaabo shirka baarlamaanka oo noo qabsoomi doona oo danta ummadda ka shaqeyno cadaalad sinaan horumar dimuqraadiyad iyo in maaragtay shacabkeenu akhlaaqiyadka diinta iyo dhaqanka iyo wax walba in laga xumaado aan soo hagaajisano yaa u soconaa waxaan rajaynayaa in shacabku taa nagu taageeri doonaan haddii la yidhaahdo soo dhaweynka bacdi waxa uu madaxweynaha iyo wafdigiisu u soo gudbeen xarunta baarlamaanka dawlad deegaanka Soomaalida oo uu ka jiray kala fadhi aan caadi ahayn oo lagu ansixinayo 4 ajende oo ay ugu horeeyaan ansixinta madaxweynenimo ee sii haynta xilka madaxweynaha in loo ansixiyo madaxweynaha cusub Mustafa Maxamed Umar iyo sidoo kale xubinta golaha federalismka iyo xasaanada in xilka laga qaado 7 xildhibaan oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya burinta go'aamadii lagu ansixiyay degmooyinka tirada badnaa ee kol hore ay ansixiyeen xukuumadii tan ka horeysay oo iyana ay ajenda ka yeesheen guddigaasi ugu horeyn waxa kala fadhigaasi furay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Axmed Shide oo ay goob joog ahaayeen inta badan mudanayaasha baarlamaanka ee koorumku ku buuxsamayo intaasi kadib waxa halkaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeediyay madaxweynaha cusub ee dawlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar iyo xuquuqaha xorriyadda qowlka lana joojiyo waxyaalaha ay ka mid yihiin awoodaha xaddaafka ay yeeshaan ama ashkhaas ha noqdaan ama ururo ha noqdaan laakiin inaan loo ogolaan qayb ka mida dowladda hay'adaha hay'adaha dowladdu inay yeelato awood xadkabaxa oo xadkagoosa oo ay ku dhibaatay karto dadka qaybta saddexaad ee ka saari doono ilaahay waxaa ka mid ah inaan ka shaqeyno sidii isu soo dhaweyn lahaa dadka qaybta afraad ee aan ka saari doonaa waa colaadda khaaska ah ee la dhexdhiga Soomaalida iyo Oromada taas oo lagu adeegaya dana siyaasadeed oo inaga laga madax bannaan colaaddaasi cidna faa'iido uma laha sidaa la socotaan waxaynu u baahan tahay si cilmiyeysan loo galo oo si cadaalad ku salaysan loo soo xiro qodobka shanaad ee aan isleedahay xoogga saartaan waxaa ka mid ah in la soo celiyo astaamihii Soomaalinimo ee muujinayay isimka
kaas oo aan dhimaaq ku ahayn inaan ka tirsanaano dalka ka tirsanahay Ethiopia cid walba oo ka tirsan Ethiopia boqol qowmiyadood bay leedahay cid walba dhaqan iyo diin iyo astaamo iyada u gaar ay leeyihiin kuwa meelaha waxaan uga cararnaa meesha ma taalo taas ayaana aasaas u ah markii aan fikirayay inaan ka fikiro Soomaalinimo sababtoo ah haddii aynan Soomaali ahayn oo Soomaalinimadeenna aynan haysanin waxay halis u nahay inaynu dhaqan guurno oo maaragtay hadaafo kale iyo ujeedooyin kale aynoo fushay mid cidna lagu xumaynayo ama lagu mucaaradayo ama laisleeyahay maadaama heer asaasiga sidaas ma aha waa mid asaasi oo dhammaantiin aad ogtihiin oo qalbiga urka iyo qof walba oo Soomaaliya ku jirta weyn waxaa kaloo kooda saari doonaa inaan soo celino sheerka ay ama kaalinta shacabka Soomaaliyeed ku leeyahay awood qaybsiga iyo qaybsiga khayraadka dalka waxaa kaloo sidaan kooda saari doonaa isdhexgalka bulshooyinka geeska Afrika regional integration waxaa la yidhaah oo ka bilaabaysa inaan horta inagu dadka walaalaha nahay Soomaalida dhex galo xuduudaha isu furno dadku isu tallaabaan iswalaalaystaan wada ganacsadaan wixii ka baxsan siyaasadda isku mid ay ahaadaan taas oo waa faa'iido dhaqaale oo aad u ballaaran dadkeena waxay ku jirta shirkooyin fara badan oo iska socda oo la xiriira aargoosi la xiriira cagajuglayn la xiriira in dad khaasa la raadsan doono ama la helan doono cadaaladdu ama gobonnimadu ma aha in wixii adigu aad ka cabanaysa shalaytooda maanta aad samayso taas waa ballanqaad runtii aan ka samaynayo shakhsiyaddeeda intii la taqaano iyo inta kaleba inay qof u abuuran inaan maaragtay waxyaalihii hore daba galo taasaan idin ballanqaadaya waa wanaagsantihiin talada in baarlamaankuna ay noqdaan dad iyaga laftooda xoroobay shaqooyinkii loo soo doortay ka shaqayn kara aniga ila xisaabtami kara su-aala weydiin kara waxaan soo diidi kara si xora sida baarlamaanada la yaqaano aan Maraykan iyo Ingiriis kama hadlin waxaan ka hadlaynaa Somaliland oo loo jeedo 120 kilomitir baarlamaanku waxa weeye waa wakiilka shacabka dad baa soo doortay codad meesha ku fadhiyaan talaada ku joogaan madaxweynaha ayaa la filayaa inuu dhawaan soo dhiso xukuumaddiisa ka gadal markii ay meesha ka baxday xukuumaddiisa ee ka horeysay waa Najiib Cabdiweli Cabdixiis telefishinka caalamiga Universal magaalada Jigjiga.